hogaamiyaha Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré ayaa dhaliilay habka qaar ka mid ah wadamada Carabeed ay waxbarashada diimeed ugu fidinayaan amaba u baraan ardayda dalka Burkina Faso isagoo sheegay in dalkiisa maanta uu u baahan yahay aqoon iyo xirfad si toos ah uga qayb qaadata horumarinta dhaqaale iyo warshadeynta dalkaasi. Ibrahim Traoré ayaa sheegay in uusan ku qanacsanayn in ku dhawaad 1,000 arday oo reer Burkina Faso ah ay u safraan dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya si ay u bartaan shariicada Islaamka iyo culumta kale ee diinta Islaamka. halka uu aaminsan yahay in isla fursadaasi lagu bixin karo waxbarashada dhinacyada injineeriyadda, farsamada gacanta, beeraha, caafimaadka, tiknoolajiyadda iyo xirfadaha kale ee wax soo saarka, kuwaas oo uu sheegay in ay ahmiyad u leeyihiin dadka reer Burkina Faso xilligani. Isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi, dalkeenu waxa uu maanta u baahan yahay injineero, farsamo yaqaano, dhakhaatiir iyo khubaro dhisa warshado iyo kaabayaal si loo kobciyo dhaqaalaha loona abuuro shaqooyin waxtar u leh dalka Burkina Faso. Aniga muslim ayaan ahay, balse ma taageersani hanaanka waxbaris ee qaybo ka mid ah dalalka Carabeed iyo dhinaca ay ula falgalahayaan dhalinyarada dalkeena Burkina Faso. Sidoo kale hogaamiyaha Burkina Faso ayaa sheegay in dawladdiisu ay qorsheynayso in ay dib ugu yeerto ardaydaasi si ay waxbarashadooda u sii wataan ugana qayb qaataan qorshayaasha horumarineed ee dalka. Waxa uu intaasi ku daray in qofkii diida in uu dib ugu soo laabto Burkina Faso laga yaabo in dawladdu ay dib u eegis ku samayso xuquuqdiisa muwaadinimo. Arrintan ayaana dhalisay dood ballaaran oo shacabka Burkina Faso ay siyaabo kala duwan uga hadleen. Warbaahinta caalamka ayaa xustay in hadalladan ay qayb ka yihiin siyaasadda Traoré ee lagu xoojinayo isku filnaanshaha dalkaasi. Warbaahinta caalamka ayaa xustay in hadalladan ay qayb ka yihiin siyaasadda Traoré ee lagu xoojinayo isku filnaanshaha dalka, horumarinta wax soo saarka gudaha iyo yaraynta ku tiirsanaanta dibadda. Tan iyo markii uu talada la wareegay Ibrahim Traoré waxa uu si joogto ah ugu baaqayay in dhalinyarada Burkina Faso lagu dhiirigeliyo xirfadaha farsamada iyo cilmiga casriga ah si ay door muuqda uga qaataan dib u dhiska iyo horumarinta dalka Burkina Faso. hadalladan Traoré ayaa dhaliyay aragtiyo kala duwan iyadoo qaar ka mid ah taageerayaashiisa ay sheegeen in laga fiicnaa hadalka ka soo yeedhay xilligan, halka qaar kalena ay ku taageereen. Halka culimada waaweyn ee dalkaasi la sheegay in aysan ilaa iyo hadda ka hadlin iyagoo ka cabsanaya nidaamka dawladeed ee Burkina Faso.